kulan ay maanta isugu yimaadeen waxgarad aqoon-yahano salaadiin dhalinyaro haween ka soo jeeda beel ka mid ah beelaha gobolada waqooyi ayaa waxa lagu qabtay magaalada Muqdisho. kulanka ayaa ujeedkiisu ahaa cabasho ay ka cabanayaan guddiga doorashooyinka loo xil saaray saami qaybsiga beelaha ka soo jeeda gobolada waqooyi waxayna sheegeen inay cadaalad darro ku sameeyeen. waxgaradkii goobta ku sugnaa ayaa waxa ay madaxda dawladda ugu sareysa ka codsadeen inay arrintaani wax ka qabtaan. haddaanu nahay beesha Akiso waxaan baaq u jeedinaynaa guddiga waxaan ku hormarinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan guddiga doorashooyinka iyo guddiga khilaafaadka dhammaan inay arrintan inta gaar ah aad ugu eegaan anagu Akishaan nahay dad qarsoon ma nihin cid kastoo Soomaalida waana taqaanaa hadda Soomaaliya iyo cadaaladdaas waxa laga qabto waxaan ka cabanaynaa systemka wax u maareeyeen oo ah in aan la tartanno sida ay warka u dhigeen annaga kursigaygii ma lihin kuraasteedii baan leenahay aqalka hoose yaan ku dulmanayn oo raadinayn aqalkiisana haddana beeshii ugu kuraasta badnayd la tartama ma aqbalayno cadaalad darradu hadday socoto oo socoto inna allaha laa yugayiru biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim waxaan leenahay walaalahaya waxaan u sheegaynaa cadaalad darradu say u socoto waa doorsoomaynaa kulligayo waxaa halkaan aan macnaha ka cadeynayaa anaga kursigaas inaan macnaha xaqa u leenahay haddii aanu nahay beesha Akiso oo marnaba macnaha tartan in dad kale ay nagula tartamaan aan ogoleyn kursigaas waxaan rabnaa in anaga Akiso kaliya ay u madax banaanaato Akiso dhexdeeda ay ku tartamaan marka qofkii noo soo baxana anaga aan diyaar u wadanahay kuwana qanacsanaanayna insha Allah haddii la yiraahdo ugu dambeyn ayaa waxaa madasha ka hadlay Suldaan Cabdisalaan Ismaaciil Cumar kursiga anagu waxaan rabnaa kursiga marba inuu anu gaar noo noqdo laakiin beelaha dirta waqooyi beesha ugu kuraasta badan inta maanta la yiraahdo la tartama taasi tuu aan yeelina ma xaqna ma ah horena anu beesha caalamka weyn u gaarsiinay horena TV waan u hadalnay mar labaadna waan ku celinaynaa xukuumadda qaranka beesha caalamka guddiga doorashooyinka in anagu aan marnaba yeeleenin in beel kale nala tartansiiyo anagoo xaq u lah inaan kursiga anaga dhexdeena kaliya ku tartarno sababtoo ah beesha Akishe ma laha kuraasta hoose anagoo lahayn kii aqalka sare la yiraahdo beel ka kuraas badan la tartan wax ergooyin anagu kuma leeyin Maxamed Cali Weheliye Universal TV magaalada Muqdisho